saaxiib yaal waxaa mar labaad sameeyay qaladkii ugu weynaa aniga janaalkayga ku dili lahaa. So adigana laga yaabo inaad qaladkan samaysay, waana ku muhiim inaad videogan dhamaysato because of wax zaid u muhiimsan anigana waxyaabo badan ku bartay ba meeshan ku jiro. So hadda marka YouTube laba bilaa ku jira, marka adiga 500 aad iyo aad umahadsantiin by the way. Dhalinyarada inta badan isoo subscribe garayso waa adiga dhalinyarada YouTube-ka waxyaabo kusoo gudbiyo ama YouTuberska waaye. Dhammaantooda maaha laakiin way u badan yihiin. aad umahadsantihiin. tan kale dadka inta badan marka ay comment soo qoraan ama adiga isoo subscribe garay aniga profile-kooda aada marka inta badan waa subscribe garay hadduusan YouTube bilaawina rebelaygiisa u gala. Marka inta badan dadka markay comment soo qoraan anigana waa subscribe garay hadday YouTube bilaaween. So marka videoga ugu fiican aan soo dhigay waxa uu ahaa ha bilaawin YouTube haddii aadan diyaar u ahayn. Analyze-kiisa markaan galo videogan waxa waaye 3.1k views iyo 51 watch hours iyo 162 subscribers. Videogan zaid u fiican anigana refresh maalinkaas anigana PC refresh ku dilay marka si aan u daawado viewskan isbedelayo 500 600 kun waa daawanaya maalinkaas markaas isbedelo viewska iyo subscriberska. So marka videogan marka aan soo dhigay adiga performance-giisa hoogaa wuu fiicnaa. Marka videogii ku yigay aan soo dhigay reality-ga YouTube inaad bilowdo iyo inaad guul ka gaadho waa laba kala yihiin. Marka videogan analyze-kiisa markaan galo waa keenay adiga 600 views 9.8 watch hours iyo 15 subscribers uu keenay. videogan ma humo laakiin waa fiicnaa. waxaan soo dhigay dhalinyaro ha lumin janaalkaaga. videogan waxyaabo faa'iido badan ku jirtay. Marka 26 subscribers uu keenay 12.9 watch hours uu keenay 1.2k views uu keenay. Marka halkan la joogo waxaa loo baahnaa inaad sameeyo formula la mid ah saddexdan videos, laakiin aniga waa ka gudbay. marka halkan la joogay waxaa sameeyay sirta algorithm viewskiisa wuu humaaday videogan. haddana midka kale ha dhigin video kale viewskiisa hoogaa 400 ma fiicno. hadda marka videogii ugu dambeeyay aan soo dhigay qaladka marka meeshaan uu zaid ugu weyn yahay. videogii ugu dambeeyay waxa waaye adiga shalay maalinkii koray soo dhigay nobody tells you this about YouTube. qaladka ugu weyn inaan title-kayga ka dhigo English ma ahayn, inaan Soomaali ka dhigay ahayd because audienceska aan rabo Soomaali waa dadka aniga waxaan u sheegi rabo. hadduu fiiri title-kan qof luqadiisa English ama dadka kale ay arkaan videogan ku dhuftaan isla markiiba way ka laabtaan waxayna kugu ridaan clickback. marka clickback-dan algorithm-ka inta badan qofkan English waaye Soomaaliya ma dhahayo. qofka hadduu videogaaga soo galo ka laabto isla markiiba wuxuu ogaanayaa in content-gaaga uu hun yahay. marka dhibka meeshaas ku taagan yahay. marka title-kan aniga English-ka ka dhigay ma ahayn inaan English ka dhigo, inaan Soomaali ka dhigo because audience-ka aan rabo Soomaali waaye. audience-ka aan rabto title-kooda description-kooda wax walba English ama Soomaali ka dhig. audience-ka aan rabto mar walba waxa ay rabaan because of dadkan waxa ay soo raadin doonaan waa English maaha Soomaali waaye. so title-kaaga mar walba English ka dhigin, luqad kale ka dhigin, isla Soomaali ka dhig. so videogan intaan ku soo gabagabeynaya. haddaan ugu cusub tahay soo subscribe garay. so 500 waa idinka mahad celinayaa. Peace.